wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Saleebaan Cali Koore oo saaka shir jiraayad uu ku qabtay xafiiskiisa waxa uu ku sheegay in ciidanka maamul goboleedka Puntland waa sidoo hadalka u dhigay inay jidgooyo ku dileen gaashaan la sare Saleebaan Cabdi Caateeye oo ahaa taliyihii militariga Soomaaliland ee aaga Taleex waxaana wasiirku sheegay inay dhaawacyo aad u culus soo gaarsiiyeen maayirkii magaalada Taleex wasiirka ayaa sheegay in tallaabo adag ay qaadi doonaan ciddii fulisay inay jidgooyintaasi u galaan taliya waxaana wasiirku tilmaamay inay jawaab celin arrinkaas ay ka sameyn doonaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan rabnaa inaanu kelmado ka niraahno runtii waxa dhacday sida aad ogsoon tihiin maamul goboleedka Puntland ciidamo ka tirsan inay xalay tahay markii gobolka Xaysimo maamulkiisii oo dhan inay u sameeyeen jidgooyo qorshaysan oo loogu talagalay in dadka lagu laayo laguna khaarijiyo iyada oo dadkaasi madaxda gobolka Xaysimo ay marayeen deegaankoodii dalkoodii tuulooyinkoodii wadadoodii iyo meesha ay ku dhasheen iyagoo u socday arrimo nabadgeliyo iyagoo u socday arrimo humanitarian oo dad xanuunsanaya iyo daawooyin iyo raashin iyagoo qaybinaya waxa wadada si qorshaysan loogu galay in lagu kharajiyo nimanka madaxda qaar kamida waxaasi xilkasnimada iyo milgaha لآدم كبحسن لوجو دلي قط أو شيء سن سواء واحد بقى ودين واحد بروبلم ودين عد هو بيصنعين وأسعد رمينا بتقولي رمو بالآدم رمو أو دتك وشقيني وحال لوجو دلي أو فلكا كنا فواي كل شهيد سليمان عبدي عاطي وأهات ليه ciidanka kamida ururada guutooyinka degan la saanood gaashaan leh Saleebaan Cabdi Caateeye oo Taleex degan sarkaal sare oo ka tirsan oo kamid ah saraakiisha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo dhaawac khatar ah la soo gaarsiiyay maayirkii magaalada Taleex ee gobolka Xaysimo oo dhaawac aad u khatar ah oo jajab iyo xabado iyo feero iyo lugo iyo gacmaba ka jaban iyo xabado kale qaba oo uun hadda xaaladiisu ay tahay xaalad ICU gaaradu waxay ku tilmaantay intensive care unit ku jira waxa xabad la daba qabsaday oo la baxsanayay muddo ku dhow 30 kiiloomitir كفرتوري مقالده ويسقون لسه يقول كحيسمو يسقون إلهي أمركي إله بأود له وكبد بعد وعاده هرله وأي بوتلان كسر ركتي تيجا مدى أول بعيدا بيصرف دي لكن إن ودوينك لسك أوقع صدو وما لحظة رجع وقوم الجهة صفية سيدا اللوجة بورو يقول ديجان كودي مري وأنه أبنه رجع ديجان كافرديا ماشي كسر شيء وحيدا بطلان ليله هذا ما تشري وقبيله يقويسس مدبر مالغا كامل وهي عن شلا يعني عيدا كالسومالي اللاني معها قويس كميش الدجن يرجع لاينا سفي عم بان أبنه أو قرنينا حوي وأنا أرين أي كذلك أوجان دونان جوابتي إن أنتي دجان كيجي يقول كيجي نلو كذي ما يدو رجع يجي هذا نسد الله حسوقه أوكي هو طلع حسوقه يكون سمايان مثل مذا وما أنت مذحدي أي سمايان سبحان الله حكومة ماذا لهلا وابحكت كي هو يكون بدقراني حسوقي طلع رجي سمي أو صوت هذا ولي تيفي هذا يلامي هذا يدو رجع يجي يهنتنا يدي
iyo hubkii ay furteen ay maqan yihiin naxariis darrada loo geysanayo ee loo qorshaynayo ragga mutacalimiinta ee ningarboodka ee ummadda indhahoodii ahayd in sida loo xasuuqo waxay ku tusaysaa in heerka la gaarsiisan yahay cadaawadda iyo deegaanka si halka laga gaarsiin yahay ka dawlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan ma ka dulqaadanayno madaxdayadii nooca ahayd waxayna ka heli doonaan jawaab cad goob kasta iyo meel kasta ilaahayna waxaan uga baryayaa marxuumkii dhintay gaashaan sarkaalka sare ahaana in ilaahay cawil khayr qaba ugu bedelo aad iyo aad baanu noogu tiiraysanahay tacsi baanu noogu diraynaa qoyskiisii iyo qaraabadiisii iyo cayladiisii iyo reerkiisiiba qarankuna wuu ogaanayaa waa nin u shahiiday difaaca qarannimada Soomaaliland annaguna waanu xusuusnaan doonaa qarankuna waa u xusuusnaan doonaa maayarkana insha Allah ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay ka kiciyo wixii gacan dawladeed loo geysan karana diyaar baanu nahay inaan u geysano maxamed aadan ismaaciil maxamed shiglan shabakada caalamiga ee Harwanaag News magaalada Hargeysa